ما بلابا يا يا ما بلابا بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan halkan aan u soo fadhiistay inaan kaga yar hadlo arrimo muddooyinkan dambe ka taagnaa gobolkaygaan ka soo jeeday gobolka awdal taasoo habeenadii ugu dambeysay ay ka jireen howlo amni darro oo sababtay in bulshadii iyo ay kala shakiyaan hoggaankoogii oo ugu horreeyo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi haddii aan ku yar noqdo arrinta keentay nabadgelyo darrada ka dhacaysay dhowr habeen ka hor magaalada boorama suldaan wabar waa suldaan ka mida sanaadiinta gobolada galbeedka kuwooga ugu tunka weynle waana suldaan hogaamiya qowmiyadan oo somalilan iyo etoobiyaba degta suldaanku 6 sano ka hor buu ka baxay gobolka awdal iyo somalilan guud ahaan buu ka goostay suldaanku wuxuu ku dhawaaqay muddada jabhaddaasoo ujeeddadeedu ahayd jabhad ka baxday saami qaybsiga ama tabashadii ay qabeen dadka reer awdal jabhaddaasi run ahaantii waxaa maqnayd muddo 6 sanaa maalinba duruuf iyo xaalad gaara bay ku sugnayd muddooyinkii ugu dambeeyey suldaanku gobolka awdal iyo guud ahaanba somalilan wuxuu ka daayay weeraraduu ku soo qaadi jiray laakiin iminka waxaad moodaa inay soo cusboonaatay muddooyinkii ugu dambeeyey haddaba su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay maxaa suldaanka marna aamusiinaya marna soo kicinaya in su-aashaa la isweydiiyay waa muhiim waxaa suldaanka marna aamusiinaya marna soo kicinaya waa suldaanku marka hore taluu ku baxay oo talada waa lala ogaa waa lagala shaqeeyey waa lagu dhiirigeliyey waana lagu garab istaagay laakiin markii dambe waxa u ekayd in marba marka kasoo dambaysa nimankii arrintaa kula baxay ee kula taliyey ay mid uga soo baxayeen suldaanku markii hore sida laisla ogyahay ee somalilanna ogtahay ummadduna ogtahay wuxuu ka baxay arrinta tabashada saami qaybsiga laakiin arrintii iminka weji kalaa loo sameeyey arrinta tabashada reer awdal way la qabaan oo way jirtaa oo tabasho waa la qabaa saami qaybsiga somalilan waan ka cabananaa heer kastoo dowladnimada somalilan ka kooban tahayna waanu ka cabananayo xaqii aanu ku lahay marka dooranaa laakiin aragtida reer awdal iyo aragtida suldaanku mid bay ku kala duwan yihin suldaanku habka uu maray tabashada iyo saamiga waa hab ka baxsan heshiiskii aynu dhiganay 1991 ee marka labaadna lagu celiyey 1993 gobolka awdal taasoo ahayd nabad reer awdal suldaanka way kula waafaqsan yihiin tabashada iyo cabashadaanu qabno anigaga hadlayaa la qaba laakiin weyga uu maray ayaanu kaga duwannahay suldaanka reer awdal waxay doonayaan inay garnaqsigooga iyo tabashadooda iyo waxay doonayaanba inay miiska keenaan oo ay cidda iyagiyo cidda ka hor taaganba inay ka doodaan hadday xaq u leeyihiin ay helaan haddayna xaq u lahaynna ay ka tegaan suldaanka markaa waxaan ugu baaqaynaa inuu ku soo noqdo waddadaas reer awdal ay qabaan ee ah in miiska wadahadalka la isku yimaado madaxweynuhuna maalintii ugu dambeysay xaadir baanu ahayn markay odayaasha kulmeen waxay isku afkarteen in ballan la qabto la iskugu yimaado ballantaana lagaga wada hadlo arrimaha saami qaybsiga haddaba waxaa mashruuc ka dhigtay arrintan horta waxaan ku hambalyeynayaa hadalkii shalayt hore maareeyihii hore waddooyinka somalilan uu warbaahinta u sheegay waa xaq waa dhab waana runtii arrintan waxaa mashruuc ka dhigtay oo suldaankana afku idhaaha madaxweynahana afku idhaaha wasiirka ganacsigu muddooyinka ugu dambeeyey gobolka awdal buu ku sugnaa anigu suldaanku waa adeerkay rumaad xogogaal baanu ahay duruuftiisa iyo xaaladda uu ku sugan yahay 10 habeen ka hor wasiirka iyo maayirka boorama waxay jufadaanu ka soo jeedno calaa shaqsi ka wariyeen $100 waxayna noo sheegeen in suldaanka lagu amba bixinayo lacagtan Mareykankii ku noqonayo xukuumadda kulmiye wixii ka dambeeyana suldaanku soo noqon doono oo wixii nidaamka loo maraya iyo sida loo xalinayaba marka laga tashan doono
deeto lacagtii waa la ururiyey lacagtii calaa shaqsi $100 baa laga qaaday sidii loo kala jeebinaaba lacagtii loo bixiyey marka dadkan ka soo jeedayna nabad bay diyaar u ahaayeen in suldaankiina iska noqdo inta wax hagaagayaanna uu halkaa dibadda jooga bay ujeeddadaydu iyo qorshaygu ahaa lacagtii waa la ururiyey 2 habeen kadib magaaladii baa lasoo weeraray su-aasha isweydiinta badan waxay tahay lacagtan la ururiyey ma hub iyo rasaas baa la siiyo in magaalada lagu soo weeraraa ay qorsho ahayd wasiirka iyo maayirka ay su-aashaasi dul taalaa hay-adaha ku shaqa lahaa kala xisaabtami doona ee ammaanka waxaa iyadna jirtay jabhad kaloo ka dilaacday gobolka awdal oo beesha bariga awdal degtahay ay ku dhawaaqeen oo muddooyinkan dambe ku jira iyaguna buuraha bariga boorama xukuumaddu wafdi bay soo dirtay uu ka mid yahay wasiirka ganacsiga taliyaha asluubta libaax rayaale iyo niman dooroo deegaankayga ka soo jeeda oo xukuumadda ku jira loo soo diray xukuumaddii iyo beeshii way wada hadleen waxaa laisku afgartay in nabaddii aynu ku soo caanamaalnay 28 sane Soomaaliland jirtay baynu isku qancin jirnay in lagu soo noqdo qoriga iyo buuraha la galay iyo jabhadda la sameeyay laga soo noqdo hase yeeshee reerkii way soo noqdeen nabad bay qaateen wasiirka ganacsiga oo aaminsan in kursigiisa lagu soo duulay oo heshiiskan Soomaaliland iyo deegaankan ay galeen wuu qaatay inuu yahay in kursigiisa laga qaadayo maadaama aan isku deegaannahay in la siinayo beesha kale ayaa waxa uu sameeyey abaabul buu magaaladii iyo kacdoon buu ka sameeyey isagoo adeegsanaya in kaadirka rumadu uu yahay maayirka boorama waxaan qabaayoon aaminsanahay wasiirka ganacsiga iyo maayirka boorama door muhiim ah bay ku lahaayeen arrintii jabhadu ay ku soo gashay gobolka awdal waxayna u qabeen oo u haysteen in kuraastooda lagu soo duulay oo reerkan kale kuraastan duulaan ku yahay kuraasta inta loo tigin mas'uuliyiin qaran weeyaan nimanka aad ku eedeynayso inay ay mashruuc ayagu furteen uu yahay suldaanku arrinta maxaad ku cadeynaysaa cadeynaad u haysaa adigu waxa anugu xoogaal baan u ahay xoogaal baan u ahay wax walbana halkay taagan yahay halkay u socdaan baan ogahay waqtigeeda iyo xilliga ay ku habboon tahay haddii sidan wax loo wado laga joojin waayo ayaanu caddeymay iyo dokumentiga iyo cad warbaahinta horkeenna laakiin annagaa hubna suldaankuna anigu adeerkayay labada ninka wasiirka iyo maayirkuna anagay adeerkayihiin sida wax u socdaanna waan ogahay iyagaa door muhiima ku lahaa in awda la soo galo oo ay jabhadu soo weerarto marka lacagtaas waxaad sheegaysaa in hub la soo siiyey hubkuna waa halkii lagu weeraray magaalada boorama su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay saan hore u sheegayba annaga lacag baana laga qaaday waxaa la sheegay in suldaanka lagu anba bixinayo 2 habeen kadibna magaalada la soo galay de qofka aqliga wanaagsan lagu garaya markaa saas ahayd waa runtaa constituency-ga way ka soo jeedaan oo deegaanka way yihiin dhiiga dhacana waan wadaagnaa laakiin waa la sii kala yahay imika hawshan suldaanka baxay iyo reerkiisa ayaa lagu koobay madaxweynuhuna wafdigaa intaaba uu soo dilayay isla deegaankan bay ahaayeen hadday kuwii bariga ka baxay ay tahay iyo haddii arrinta suldaanwabra tahayba isku hal wafdin bay marayay marnaba labada wasiire kale deegaanka ka soo jeeda looma soo dirin hawshaa marka waxaa halkaa ka cad in la doonayo arrintan in lagu xaliyo deegaanka hawshu ay dhinacooga ka socoto laakiin marka dambe ay timaado tala qaran waa khasab in la soo diro wasiirka beeraha iyo wasiirka caafimaadkaba oo iyaguna doorkooga ka ciyaaraan laakiin halka wasiire dhexdhexaadka isku dayaya saan anugu ognahay cadeymaha inasaad sheegaysay haddaad eedaysaan oo wasiiradii aan dhexdhexaad gelin lahaa dahraan kuma jiraan maxay nii xala wasiirka ganacsiga soo maha wasiirka ganacsigu iyo suldaanku waa ilmaadeen ruma hase yeeshee dee ninkana isagunbaa suldaankiisa ahaa kanna isagaa wasiirkiisa ahaa wasiirkuna waa nin saaxadda siyaasadda ku cusub oo wuxuu aaminsan yahay maadaama ninkan suldaan wabar iyo xataa beeshan kale bariga boorama ka dagaalamaysay waa isku wada har reer marka wuxuu aaminsanaa maadaama kacdoonkii wabar aamusay muddooyinkan dambe oo sidaynu ognahay intaan weerarkan iman ka hor suldaan wabar dee muddo maynaan ogeyn halkuu ku sugan yahay iyo dagaalo mu soo qaadin maadaama agreement ay galeen dowladdii iyo
jabhaddan bariga ka dilaacday wuxuu aaminay in kursigiisa xal looga dhigayo dadkan tabanaya waxay cabanayay markaa taasaa keentay wasiirku inuu ku dhiirado inuu falalo amni darro ka bilaabo gobolka gobolka dee aqoon-yahanaa jira saas sheegtayna sheekada lacag ururintu waa sheeko aqoon-yahan waxgarad markasta ma ogtid hawa maxay sababta hawa dhallinyaradii ka mid oo hargeysa ku sugan arrintaa uga hadlaysa waxaan uga hadlayaa kolley duruuf baa keento dadkii afkay wada xidheen marka haddii dadku wada aamusaan waxa muhiima dee haddii la wada aamuso dhibteeda yaraansa oo wixii la huursadaayey qurunkiisuu leeyahay marka niman badanoo jecel inay hadlaan way jiraan laakiin duruuf baa haysa awood ay ku hadlaan baan jirin marka anigu anu malihii afkii Suldaan baan ku hadlayaa ama afkii beeshiidaan ku hadlayaa shakhsi reer odan ka mid ah baan xaq baan u leeyahay wax deegaankayga ka socda inaan ka hadlo oo sheego laakiin shay waxa la damaarayay hore wadooyinka haddana hadalkiisa si arkaysa miyaa la orakin ininka iyo maarayo sidaas ku yar aniga haddii la eego maareeyaha iyo wasiirka adeerkaya waan maareeyaha iga xiga maareeyuhuna siduu sheegay 2018 markuu madaxweynuhu ka soo qayb galay xafladii qalinjebinta jaamacadda Camuud maareeyuhu reerka uu ka soo jeedaayay wax way soo urursadeen madaxweynaha doonayay inay la kulmaan oo tabashadooda iyo cabashadooda u soo bandhigaan wasiirka ka hor istaagay oo wari anaa nimatara deeto wasiirku arrintan wuxuu ka dhiganayay wuxuu aaminsanaa uu ilaamka aaminsan yahay reerka iyo madaxweynuhu haddii isgaaraan kursigaaga ciiri galaya marka taasaa keenaysa inuu ka hor istaago wasiirku